kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka caalamiga ah ee deegaan channel TV oo hadii jaraalaad ka daawataan bartaan kulana YouTube-ka aaladaha social media ayaga naga daawan daawadayaal barnaamijkeena faaqida wargeyska maanta way taariikhdu tahay 4 bishii 9 2018 waxaan ku soo qaadan doonaa dowladda Muuse Biix Cabdi hogaaminaya ka dhisan Soomaaliland oo imika sanad ku sii dhow maxay iska bedelay maxay soo kordhisay barnaamijku waa barnaamijkii faaqida wargeyska markale kulanti wanaagsan daawadayaal sidaan la socono dowladda Muuse Biix Cabdi ayaa waxay hogaaminaysaa wadanka Soomaaliland la yiraahdo muddo iminka ku dhow sanad waxaana sanadka ka hor muddadaasi la kulantay mucaaradad xoog leh hase yeeshee waxaa la filayay inay dowladdu la kulmi doonto mucaarad ka sii xoog badan sida ay maanta tahay oo xisbigii ay la tartantay ee helay codka aadka u lixaad kale 40% ah uu isticmaali doono taageeradii iyo awoodii uu helay oo uu gilgili doono dowladda hase yeeshee waxaa xisbigaasi ka awood batay la leeyahay habka qabaliga ah oo waxaa markii dambe uu isugu biyo shubtay qaab qabiilaysan maadaama oo xisbinimadiisii uu wiiqmatay dowladdiina chanceskaasi way ka faa'iideysatay la leeyahay waxaana imka la saadaalinaya dowladda madaxweyne Muuse Biix Cabdi 4 sano ee soo socota inay wadanka ku wadi doonto dowlad aan lahayn mucaarad tamara badan leh oo ka soo horjeeda maadaama mucaaradkii loo sibir saaraynayo inuu hab qabaa'il u dhaqmay amaba uu sameeyay jabhado ka madax banaan xisbiga oo doonaya inay wadanka qori caaradii ku qabsadaan waa sida aragtida caadiga ah ee qofka Soomaaliland jooga uu bixinayo marka la weydiiyo waxa kale oo dowladda Muuse Biix Cabdi imika lagu majeeranaya habka mashaariicda wax soo saarka wadanka ay wado taasi oo la saadaalinayo hadii ay sidan ku sii wado ama ay beerto mashaariic ka badan kuwa ay imika wado ee ah kuwii horu jiray ee gobol banka Wajaale la yiraahdo iyo waliba xaaxi oo iyadana wax ku dartay inay wadanka hadii ay saa ku sii wado baa la leeyahay soo saari karto dowladdu cunto ku filan dadka deegaankaasi degan waxaase taa hor taagan baa la leeyahay dadka laftirkooda oo aan iyagu ogolaynba in dhulka wax laga soo saaro hase yeeshee dowladda Muuse Biix Cabdi oo iminka aad moodo inay doonayso inay kaga dhabayso waxyaabihii uu madaxweynahaasi ku ololeynayay muddadii markii uu xukunka u tartamayay oo uu lahaa waxa la doonayaa in 20% la soo saaro cuntada wadanka dadka wadanku cunayo aan ilaahdee ayaa waxa imika u muuqataa inuu fikirkaasi dhaboobayo waxaana dowladdu ay soo afjartay oo ku guuleysatay shaqaaqooyin yaryar oo beelo kamid ah beelaha wadanka deega ay isku hayeen meelo deegaana ka tirsan dhulka wadankaasi waxaana iyadana xal nabadeed u eeg in laga gaaray dagaalkii Tukaraq iyo deegaanka Puntland u dhaxeeyay oo muddo badan soo noqnoqday isaga laftirkiisu walow way imika jiraan jabhado deegaanadaasi lagaga dhawaaqay oo iyaga laftirkoodu iminka laga yaabo inay noqdaan qodax ku taagan hase yeeshee dadkaasi aanay u dhamayn jabhadahaasi oo aanay dadku doonaynin nabadgelyo darro ee ay doonayaan horumar waxaase dowladda Muuse Biix Cabdi looga fadhiyaa sidii dadka isugu wadi lahayd waxaase iyadu meesha ka baxday xisbigii weynaa mucaaradka ahaa ee wadani oo doonaya inuu hab qabaliya ku galo doorashada maadaama baa la leeyahay ay siyaasadda hore ugu soo jiray muddo dheer ama ta Soomaaliya inta badan ku soo jiray ee lagu qaybiyo 4.5 ay doonayaan iminka in ciidamada wadanka maca lagu qaybiyo siyaasadda la yiraahdo 4.5 taasna ay tahay siyaasad xumo soo wajahday hadii ay ka hirgasho dowladda oo ay dowladdu ka aqbasho qaranka Soomaaliland warkan iyo faaladan waxa kala socoteen telefishinka caalamiga ee deegaan channel TV intaynu mar kale ku kulmi doonaa hawada daawadayaal waxaan idin leenahay amaana Allah iyo isarag dambe